soddonkii waxa uu ahaa duuliye Mareykan ah oo ku shaqo leh baadhitaanada duulimaadada aadka u sareeya. Waxa uu kala ahaa macallin jaamacadeed. Waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee lugihiisa dhiga dayaxa dushiisa. Taariikhda uu ku degay dayaxa dushiisa waxay ahayd 20-ka bisha 6 1969. Waxa uu Armstrong dayaxa dul saarnaa muddo gaadhaysa 2 saac iyo badh. Isaga iyo saaxiibkii waxa isaga iyo kooxdii la socotay uu Koongareeska Mareykanka guddoonsiiyay bilad sharafeed aad u qiimo sareysa ka hor inta aanu noqon duuliyaha. Waxa uu ka soo shaqeeyay ciidanka badda. Waxa uu ka qayb galay dagaalkii Kuuriya. Kadib markii dagaalkii Kuuriya uu dhammaaday, waxa uu ka shaqeeyay oo uu noqday duuliye sameeya tijaabada diyaaradaha dagaalka. Waxaa iska dhalay aabihii la odhan jiray Stephen Cornin iyo hooyadii oo ahayd Fuller Louise Angel. Waxa uu Neil Armstrong ku dhashay magaalada Abercrombie ee gobolka Ohio. Waxa uu ahaa aabihii oo u shaqeynayay dowladda Mareykanka, waxaanay isaga iyo hooyadii iyo aabihii ku wareegay dhammaan Mareykanka. Waxayna deganayeen in ka badan 20 magaalo oo kala duwan. Sanadii 1947 ayuu Armstrong bilaabay barashada hindisada diyaaradaha ee jaamacadda Purdue University ee ku taal waddanka Mareykanka, halkaas oo uu jaamacadda heer sare ka gaadhay. Waxaa lagu yeedhay ciidamadii badda 20-ka bisha 4 1949, halkaas oo uu si fiican ula qabsaday ciidanka badda qaybta diyaaradaha maraakiibta ka dulkicisa. Isla markiiba waxaa u fududaatay inuu diyaaradaha ka dulkiciyo maraakiibta soona fadhiisiiyo. Wax yar kadib waxaa loo sheegay inuu noqdo duuliye sare oo ka tirsan ciidamada badda. Shaqadiisa ugu horeysay waxay ahayd inuu hawada ku jiro isaga oo la socda duuliyayaal kale in ka badan 7 saacadood. 2 bilood kadib waxaa loo magacaabay inuu yahay duuliyaha dagaalka oo ka tirsan guutada diyaaradaha ee 51aad, taasoo aadaysa Kuuriyada Waqooyi. Kadib dagaalka Kuuriya waxa uu duuliyaa in ka badan 100 diyaaradood oo kala duwan. Magacayga waa Cabdullaahi. Halkan waa kanaalka Dunida. Inagu soo biir oo subscribe-na inoo saar oo rukumo kanaalka.